الحمد لله والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، أحبتي في الله، أحبكم في الله. maanta waxaan rabaa hadduu ilaahay subxaanahu wa tacaalaa nafta ii daysto iina suuro geliyo inaan ka hadlo qofka muslimka ah ama qofka muslimka ah haddii uu ku dhaco waxyaabo shareecada islaamka ka soo horjeeda ama xadiis nebi inuu dafiro, macnaa uu si kale axaadiistii ugu tilmaamo waxyaabo kale, ama qur-aankii alle subxaanahu wa tacaalaa waxyaabo kale uu ku tilmaamo. qofkaasi maxay diinta alle subxaanahu wa tacaalaa naga amraysaa? maadaama qofku uu ahaa qof muslim ah laakiin uu ku dhacay waxyaabo keenaya in diinta looga baxo, diinteennu marka maxayna amraysaa? ilaahay subxaanahu wa tacaalaa isagoo nebigiisa la hadlaya waxa uu yidhi, udcu ilaa sabiili rabbika bilmawcidati alxasana. ilaa sabiili rabbika, rabbigaaga waddadiisa ugu yeer, bilmawcidati alxasana, wacdi wanaagsan ugu yeer. qof ayaa waxa uu ku dhacay maalan arrin kufrinimo ayuu ku dhacay, lama rabo ama diinteennu ma ahan diin qofka isla markii xukun hore kaga ridayso. culummadu waxay dhahaan waxay u baahan tahay qofkii in la weydiiyo, war waxaas aad samaysay kufrinimada ah oo noocaan ah aad samaysay maxaad kala waday? aqoon darramaa kuu geysay? kasmaad ula kacday? in qofkii arrinkii horta lagu bayaani, xujadii lagu oogo oo lala hadlo qofkii, ee ma ahan in qofkii kufrinimo iyo gaalnimo hore miidiyaha lagala soo istaago la yidhaa hebel waa kufriye. hadda anigu maahan qof difaac, laakiin waxa ay meesha diinteenna ay ka taagan tahay mowqifka kufrinimada ama gaalnimada qofka ay ka taagan tahay ayaa arrin adaga. ilan qofku gaal haddii la yidhaahdo dhiiggiisa wixiisa xalaala. marka qofkii arrinkaa la weydiiyo, xujadii lagu oogo, laba mid buu noqon: qof jaahilnimo u geysay oo diinteenna cudurdaar ay siisay, iyo qof kas u dhahay oo markaa arrin kufrinimo waadixa ku dhacay, ka toobadkeen la dhahay, diiday, waa ku gaaloobayaa. laakiin qofkii aqoon daradii u geysay in la fahamsiiyo, ilaahayna u toobadkeen la dhaho, oo lala hadlo, ilaahay u toobadkeen la dhaho, ayay diintuna amraysaa, oo aanan kufrinimo lagu xukumin. laakiin qofki inta loo sheegay, xujadii lagu oogay, diiday, inkirsan, diintu waxay amraysaa qofkaas inuu gaal yahay. wixii intaas ka sokeeya qofka asagoon arrinkii xujadii lagu oogin, arrinkii loo sheegin, lagala hadlin, in isla markii kufrinimo lala soo boodo, diinteennu ma ahan diin fudayd ah ma ah, oo qofka sida rabo loo xukumayo ama xukunka la isaga ridayo. xadiiskii nabigeena calayhi salaatu wasalaam ee abi ruqya timaam bin aws ee xadiiska muslim wariyey, addiinu nasiixa. rasuulku wuxuu yihi diintu waa nasiixo. qulnaa liman ya u tahay rasuul allah? lilaahi walikitaabi walirasuulihi ayay u tahay. saxaabadii rasuulku waa ay weydiiyeen, waxay dhaheen qulnaa liman, rasuul allahu yay u tahay.
rasuulkana lilaahi walikitaabihi walirasuulihi walia'immati almuslimiina wa caamatihim. lilaahi allah ayay u tahay naseexo, walikitaabihi kitaabkiisa, walirasuulihi rasuulkiisa, walia'immati almuslimiina muslimiinta a'immadooda madaxdooda, wa caamatihim iyo kuwooda caamada aan waxba aqoonin ayay u tahay. allaahu akbar. diinteen waa naseexo, in laysku naseexeeyo oo si wanaagsan layskula hadlo oo si hoose wixii layskula sheego naseexo ah, wixii naseexada ka soo baxa kadibna haddii ay arinku ay noqoto arrin qofkii uu ka soo laawaayeen in ummadii loo caddeeyo. diinteena saasayna amraysaa, tawaaducaas ayayna amraysaa in qofkii si naseexaa warka loogu sheego. macalasaf laakiin anagu waan iska fududaysanay kufrinimada iyo gaalnimada. qofka hadduu soo hadlo sabaqu lisaan ama wax ka dhacaan ama wax uu yacni sheego, kufrinimada anagu waynala caddahay oo horaan ka soo dhigana qofku waa iska xukumaynaa. xukunkana sidiisana yacni inagu degdego uma baahna. anigu hadda ka hadli maayo culimmadii soo hadashay ee baraha bulshada ka soo hadashay, laakiin si guud ahaan diinteenna nasiixadeeda iyo wuxuu ahay diinteenna yacni wuxuu ahay naxariista ka muuqata in qofkii waxa ka soo yeeray qofkii lala hadlo, xujada lagu oogo. markii xujada lagu oogo oo wixii loo sheegay war wax saanad ku dhacday ilaahay ugu soo laabo, hadday jaahilnimo kaa geysay, haddaad aqoon u leedahana alla ugu soo laabo, haddii uu markaa uu ku adkaysto in markaa la sheego. macalasaf xitaa waxaa dhacda qofkii asagii oo arrinkii haddana dib ugu soo laabtay oo ka hadlaya oo dhahaya waxaas anigu saas kama wadin, saas ayay ahayd, haddii ay qaldantana nafteyda iyo shaydaan ayay ka ahaatay, ayaa haddana macalasaf dadkii waxa ay samaynayaan inay yacni wixii buunbuuniyaan ay qofkii gaalnimo ku sii ridaan. walaalayaalow ilaahay aan ka baqno, rasuulkiisa aan ka baqno, war khiyaamaha qabrigana suga aan ka baqno, ilaahay hor istaagiisa aan ka baqno. qofku dhahaya aniga xadiidkaas ma inkirin, anigu xadiidkaas yacni ma diidani, xadiidkaasna waa diidana ma dhihin, inaad weli ku sii xakunto ama aad tiraahdo wuxuu ahaa waa gaal, un adeeg kugu soo laabanay gaalnimada. marka waxaa loo baahan yahay marka wax la oogayo ama qof wax lagu xukumayo waxay u baahan tahay xujo ku oogis. waxa la yidhaha in qofka xujadii lagu soo oogo lasoo hubiyo. qof ma ahan marka diinteena wax sahla ma aha oo qofka dariishada hore looga saari kara ma aha. walaalayaalow ilaahay aan ka baqno, rasuulkiisa aan ka baqno. qof difaacidna igama ahan, laakiin kufrinimada ereyga kufri ah qofka in gaal lagu tilmaamo wax culus ma aha, wax fudud ma ahan. wax fudud ma ahan qof inaad tiraahdo waa gaaloode. waxa kuu furan keliya qofka xitaa haddii aadan u tegin inaad si naseexo guud aad tiraadid waxaasaad ku dhawaaqday, waxaa ka dhalan karaa waxyaabo kufrinimaa ka dhalan kara inaad tiraadid. laakiin arrinkaasi wuu ku gaaloobay, gaalow ku noqday, wax sahlan ma aha. gaalnimada wax sahlan ma aha walaalayaal. sa anaga Soomaali haddaan nahan intaasaan gaalnimo isku soo xukumayna, aan dadkeeni laynayni, aan dil isku soo wadna. marka culimmadii xilligii xataa Itoobiyaanka ku jireen hadda waddanku gaalo way joogaan oo dhahayeen gaala waddanka ku jirto oo lala diriraa, haddaba amisom way joogtaa oo gaalo ah. shalatoole dowladdii la socotay amxaarada ama Itoobiyaanka la socotay waxaa la dhahay waa wada gaalo. hadda kuwaan la socday amisomtaan la socdo maxay kuwaas kaga duwan yihiin? culimmadii shalay xukumaysay maxay kaga duwan yihiin? ilaahay haddii laga baqayo subxaanahu wa tacaala. dastuurkan annaga noo yaalo waxa ku yaalo kulligiis badankiis waa kufrinimo. qawaaniinta ay dowladdu isticmaasho waa kufrinimo badankood. kama hadlaysaan oo kama dhidhinaysaan, idinkaa madaxdii garab taagan. culumoy ilaahay kaga baqa, aakhira waa lis su'aala, waa lis weydiinaa waxyaabaha qaar. miyaydan arkaynin
qofka markii la xukumayo dil toogasho lagu xukumayo ilaahay wuxuuna amray in kitaabka ilaahay iyo sunnada nebiga qofka lagu xukumo in aayadii quraanka inta meel laga soo qabto haddana sharci la soo dejiyay oo ilaahay sharcigiisa aan ahayn lagu darayo arrinkaas maad kala hadashaan dowladda maad ka qabataan aad u sheegtaa inaad kufrinimo ku jirtiin gaalnimo aad ku jirtiin ma u sheegtaan markaad qof ruux muslim ah oo qaldamay oo qaladkiisii soo qirtay oo yiri shaydaan nafay ka ahaatay aad daba kacaysaan kufrinimada ay dowladda xukuumadda dadka markii la dilaayo ay la soo galayso kitaabka ilaahay ma kala hadashaan baarlamaankan badankiis u badan kuwa wuxuu ahaaya dibadaha ka imaaday ee xukuumadda gaalada wada qaar ka midana ay sheegeen ninkii naagtin isguursan karaan maad kala hadashaan baarlamaankan waxa ku jiro qaladka ah oo waxyaabaha gaalnimo ku jirta ma kala hadashaan dowladda culumooy ilaahay subxaanahu wa tacaala ha laga boqo waddankeenna waxyaabaha ka jira badankood sharciyada laysku xukumo ma ahan wax diinteenu raalli ka tahay idinkiina waad hadlaysaan dowladdii waa soo garab istaagaysaan oo ayadii wadata qofkii ruux muslima wax ka dhacana waad oo ka soo laabtana waad daba taagantihiin ilaahay ha laga boqo ilaahay siyaasadda ha looga boqo ilaahay diinta ha looga boqo wax kastaale ilaahay subxaanahu wa tacaala ha looga boqo oo sida diintu amarayso waadixa ha looga hadlo garsoorka waddanka ka jira ha laga hadlo sharciyada dowladda ha laga hadlo kuwa baarlamaanka haystaan ha laga hadlo oo waxyaabaha khaladku waa diinta ha laga wada hadlo ama ma ahano qof muslim markuu qaldamo keliya yaana soo dul istaagin dowladdii dhan ha lagu fiirsado madaxdeena qaar ayaa u baahan seexo u baahan in wax loo sheego u baahan oo naftirkooda diinku meelo qaar kaga dhacayn marka walaalayaal anigoon culummada waxba dhahaynin waa culimmadeedii laakiin dalkeennu ma ahan dal sharciga ilaahay 100% looga dhaqmo ma ahan xukuumadeena waxaa ka sarreeya xukuumadda ay gaaladan soo dejisay ban haddaan isku sheegin oo aan la isku gambayn culimmadana ka wada hadlaan ha ka dhiidiyaan ha ka istaagaan siday arrintan hadda ugu istaageen arrin lamid ah inay kula istaagaan wabillahi tawfiiq wasalaamu calaykum waraxmatullaah